wanaagsan tahay marka arrimaha guud ahaan marka la sheegay laakiin waxaad moodaa meelo badan oo wax ka dhacdhaceen oo ay taagan tahay way jirtaa abaar baa ka jirta gobollada bariga abaar ba'an baa ka jirta dhibaato badan baa jirta galbeed baa dadkii u soo socda oo gaadiid baa sida ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horreysa inuu ilaahay raxmadkiisa inaga soo qabojiyo oo nin walba halkiisa madal khayr qabo ilaahay ugu shubo arrimaha guduhu de way ballaaran yihiin oo meelo badan bay gashaa laakiin markaynu si guud uga hadallo xaalado badan oo gudaha saameeya oo dibaddana saameyn ku leh ayaa taagan tii galbeedku ha horreyso arrintii galbeedku waxaad moodaa inay dee xaaladdeedu u degan tahay laakiin amnigii la sugay wax laga dhaafiyey oo looga gudbay weli ma jiro innaguna somaliland waxaad moodaa markay wax dhacaan un la yacyaacee intay wax qabooyin in hawshii halkii la joojiyey laga dhaqaajiyaa bay u baahantay malaa gol ahaan xukuumadday ku sugaynaan malaynaya ilaa imakana weli islamaynaan jaan qaadin oo warbixintii islamaynaan helin taa waa laga daba tegayaa guddidii waa ka daba tegaysaa kulli waa loo ballansan yahay golahana war baan ku soo celin doonaa insha allahu billahi kariim xagga bariga meelo badan bay wax ka dhaceen meelaha ay ka dhaceen waxaa ugu dambaysay tii dee imika laashiyad guddoomiyuhu uu baaqa nabadgelyo kasii jeediyey baaqa ka soo jeediyey iyo tacsida intii guddoomiyuhu yidhi baynu leenahay waxaanu leenahay war waa la soo gurbaday annaguna diyaar baanu nahay inaynu cid kastaba iskaashi ka yeelanno markay dadka xasilinta noqoto ama puntland ha noqoto ama somaliland ha noqotee cid waliba siday ugu fara dhuudhubantay in looga wada shaqeeyo oo waa dhiigbax dadka dhulkaa yaalla labada degaanba way ka soo jeedaan waana wada degan yihiin waxaan is leeyahay waxaynu u baahanay inaynu si wada jiraan arrintaa nabadgelyada uga wada shaqayno oo xukuumaddeena iyo wasaaradda daakhiliga iyo hadday noqoto wasaaradda daakhiliga halkaas iyo madax dhaqameedkeennuba iyo gol ahaanba inaynu ku wada hawlgallo sida ugu quruxda badan ee gacmaha la socodsan karo intaasaan ka odhanaynaa waxaa jira arrimaha dibadda runtii waxaa ku jira ya gudaha uba dagaallo badan baa dibadda inaga socda dagaalladaasi waa dagaallo beddelaya geopoliticskii adduunyadan ama gobolkan ama geeska waxaynu u baahan nahay in si dhowna looga shaqeeyo oo si dhow loola socdo dagaallo badan oo dowladda soomaaliya ay nagu haysaana way jiraan haddii evisa jiray oo dagaalka evisu marka malaa dadkeenu soo noqonaya in baa la dareemaaya waqtiyadii dee dadku xagaaga soo noqonayay samarkiina uu dhow yahay markaasaa dadka culays badan ee uu ku dhacaa weli tallaabo la qaaday oo muuqataa ma jirto taasi halkaasay taalla waxay u baahan tahay inaynu balbaahi doono meelahay wax ka qaldan yihiin inaynu balbaahi doono dalalbani xidhiir la leedahay wanaag badan baa jira haddana evisa la'aantii lama soo mari karo siday isu qabanaysa maa fahmin taasi laga daba tagaa bay u baahantay hadday imaaraad tahay evisa la'aantii lama soo dhaafayo hadday etoobiya tahay evisa la'aantii lama soo dhaafayo waana waddamada ugu dhow ee aynu xidhiirka leenahay waxaa kaloo kusoo kordhayay imika maraakiibtii containerska qaadaysay marka shirkado ka midaba ayaa berbereska joogsaday oo joojiyey sabab u joojiyeen ilaa imika maynaan daba tegin in xog laga helaa baynu u baahan intaynaan cidnaba la hadal waa arrin socota runtii siyaasadina aad mooddo inay dabada ku hayso hadday sii socotana dhibaatooyin badan bay keenaysaa marka waxay la tahay in wasaaradda arrimaha dibadda inaynu u yeedhno xaaladaha jira aynu ka waraysanno qodob saddexaad baa ii raaca oo soomaaliya waynu kala gunay haddana baasboorkoodii hargeysa lagu bixinaya isma xidhayso in baasboorka soomaaliya hargeysa lagu bixiyo dee anu macnaha alla macnaha inoo samaynayso maan fahmin marka iyada lafteedu xajka ilaahay ku waajibay haddaad baasboorkaaga lagu tegi waa inuu ku diiday iyagay xujo ku tahay
لكن مهم واحد وياه باسبور الصومال لا لو بخليه هرقيسو يالا يا حمر waxay ku diidayaan culimada isma saarin xafiiskaas hargeysu ka furan yahay uu shaqeynaya baasaboorka waa laga bixinayaa dekeena Allah hadii uu kaala rabado inuu kaala aqoonsan yahay marka badin maayo kulli hadalka waxaan isleeyahay wasaaradda arrimaha dibadda loo yeero wasaaradda arrimaha gudaha lafteeda in lagu yeero golweyne looga yeero gudiyada inta laga daayo golweyne looga yeerana waa soo jeedinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.